meeshan waxaan ku soo dhaweynaynaa mikrofoonka Aweys Jambaluul ku soo dhawow adoo Soomaali la dardaarmaya fariintaadan u gudbinaya ku soo dhawow maaka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Soomaaliweyn meel kasta joogtaa والسلام يا waxaan la dardaarmayaa xildhibaanada wadanka maanta idinka ayaa gacantiina ay ku jirtaa qofka aad dooranaysiin waa inuu noqdo qof aad idinka macnaha doorateen aad ka fikirteen taariikhdiisa historigiisa aad ogtihiin waxaan rajaynaynaa insha Allah mid fiican inaad doorataan oo idinkoona lacag fiirinin ilaahay ka baqa ummadda waa dhibaataysan yihiin qurbaha waa lagu dhibaataysan yahay meel walba Soomaali joogta maanta waa dhibaataysan tahay marka waxaan idinka sugaynaa inaad doorataan madaxweyne aad iyo aad u fiican oo hawsha meeshii ka sii wado hadduu noqon lahay kan hadda jooga iyo kan imaan doono marka insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad wadanka sama bixisaan oo godka aad ka qabataan dawlado badan oo cadow baa jiro waxaa jira dad badan oo ka soo horjeedo inay dawladda kor u kacdo Soomaaliya lagu ku istaagto ay socoto ciidankan waxaan u sheegaynaa insha Allah meeshiin hawsha ka sii wada odawaa dhammaan ciidanka dhan waad wada salaamantihiin dhammaan Soomaali maxamed oo dhan baarlamaankana la dardaaran baarlamaankana aad iyo aad aadan madooban waxaan u sheegaynaa insha Allah inuu shaqada si fiican u qabto ummadiisa uu garbaxo insha Allah Abu Mansuurna uu meel soo saaro Mukhtaar Roobow uu meel soo saaro macnadarada ku xiran oo dambiga oo sanleen uu ku xiran yahay waa in taasna la fiiriyaa oo meel la soo saaraa haddii kale xaq lama helayo oo dad kale hadana si dhibaatoonaya oo mucaarad si noqonaya dhib sii wadaya marka waa laga roon yahay waa inaad meel saartaan maxaa tiri walaalkay lacagta la cunayo Allahu a'lam inay lacag cunay in kale laakiin waxay u badan tahay boqolkiiba 90 lacagtiina cuna lacagna waa qaadasho wax fiican oo noo doora wax fiican tuuka noqoni kan soo baxay tuug waa ka saa umada tuuka noqoni yiri Cismaan Gurey saasuu yiri assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa wuxuu ahaa Uweys Mr Uweys buu ahaa war ilaahay ha laga boqo laaluusku ma fiicna wallahi ilmahaaga ubadkaaga meel walba uu ka goynaya saad doontaan idinku wax u qaata laakiin waxaan leeyahay dhibaatayeen kaga imaanin laakiin u heliya qarannimada Soomaaliya maanta 30 sano mugdi ku jirtaa mugdigaas hadaan sii galno 30 kale dhibaatadeeday leedahay marka nin wanaagsan oo ilaahay ka baqayo oo la xisaabtataan hantida uu haysto oo wuxuu haystaa la xisaabtataan oo bari lagu xisaabtamo doorta ilaahow ba iyo taayu aqoon laakiin nin ilaahay ka baqanaya salaad iyo ay ku wajahan tahay oo muslimnimo oo muwaadin Soomaaliyeed doorta tuugadan meesha iskugu timid دمل جديد بانهي بدبادة قرن بانهي فلم بانهي نوالبا كينياتيكا يا إماراتكا يا قدر وحاسو دونوتا كبد بادية دالكا وعن ليه وحا ماشي جوغو دوني ومدان قد بكوردين يان الله سينين نين عصب والنظيفة سومالي لغا موائين هدا قد كوردين قد كاسم بكوشرينا والسلام عليكم ورحمة الله حاج علي لما كلمة دوت بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعلي الدائر وحن Soomaalidu sheega nin khayr qabo in Ilaahay ka baryaan oo nabadgelyadiisa wadanka sugo oo xaq u danaaniyo Ilaahay inuu saalo Soomaali way dhibtootay marka intaan ka badan qorbo ma joogi karno qof fiican ummadda Ilaahay u soo diray Ilaahay u keeno oo wanaagsan baarlamaanka maxaa kula dardaarmaysaa baarlamaanka waxaan kula dardaarmaa maanta Soomaali u baahan tahay in loo hiiliyo qof fiican oo Ilaahay ka baqayo doorta ومدان وقبناي ساسا لبرلمانك خيرا ورجينا سومالي ودن إنه إلى إسكو كانوا شنت سوماليات لمانتو إن شاء الله علي عادي عاد بقوم السنتاي ورئيسين ونوسي سعونيا أنجو هل وسي سعونينا إلا بريتو سوماليي حقنا قاتا رمتنا قاتا العقوى عنس نكفي عنه وقشبة هذا المذوبة بالله دردار بينا هذا المذوبة experience بالله ودك واحد بضبك سوش قيسي أفرتي هورنا قلب بعدعي هذا لكن ما تراها صار نفي عن لي ماذا حلمان رضا الله علينا حلمان بقول يكتر كاغا لما هذا بقول جيبك رمتنا أوهيلي بنتنا جيبك كذا كوريدو وين السلامينا خير بدن بايني رجينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته